بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة وروي عجلدا وحا لا يرادا قرية خاخلين سعيد عبد الله ديري وحا أسعد وقهر يمي فكركي madaxweynihii hore maxamed cabdilaahi farmaajo oo ahaa in dalku u dareero one man one vote. saaka siciid wuxuu ina leeyahay doorasho hal qof iyo hal cod baan ka qabanayaa Puntland. warka kac ومالين نفسي باكو هيا مالين تأوسعيد سيدا لها الليد كمحمود صليبان سعيد بيكون رأسنايين مع كون مانتا اي اسحيان اي ارنشان اي لبدا الجروب وفروله iyo ina shido marna waa isku group oo qabiil ka mideeya marna danta kala kaxaysa sida aawadeed maanta siciid cidda ku haysata ee kaka waa isla iyagii wada jirka ahaa ee farmaajo ka horyimi haddaad xaqdarra lagu heshiiyo war xaqaa lagu diriraa. waxaa intaa siciid u weheliya xasan shiikhow ra'iisul wasaarahaan rabaa ugaadeen kursiga ma geeyo xamse kursiga ma geeyo war ka kabaanu leenay waa geeyaa one man wafoodna ka dhici maayo Puntland. warkaa iga gaarsiiya siciid cabdilaahi deni alxaqiiqa qodobkaa intaas ayaan ku dhaafaya. waynu ka warqabnaa in midowgii murashaxiinta waa 1 qalbi madoobe waa 2 siciid deni waa 3 waxaa soo dhamiba fiishinkii markaa dowladdii hore inay ka hor yimaadeen. waa same scenario, waa maalin nabsi. siciidow ha moodin inay keligaa kugu ekaanayso. dad badan bay sahayan doontaa afkaartii dowladdii hore maxaa yeelay dee afkaar xaqa bay ahaydee afkaar cusub la yimaada. wali qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. muuse biixi cabdi iyo siciid deni waa 2 dictator, waa isku naqshad. godku ilaa biyuhu ay godka ugu yimaadaanna wax ma gartaan. wixii uu shalay muuse ku hadlaayay waan la yaabay. cawaaqibka ay u leedahay muuse maba garanayo. weli soomaalidu ma fahmin war soomaaliya kama jirto dowlad adag. waa reero nimankaa danaha leh ee beesha lixaadna war inaga adag. muuse godkiisii buu isna qodanayaa. khudbadiisii markaan dhegaystay nuxur ma lahayn. khudbad askari bay ahayd
ودبو أولي بعسكري دبو قضب كان انتاسان كدا فيا الحقيقة أحمد محمد إسلام وأنا أقانو قلبي مدوبي wuxuu aad iyo aad ula dirirayaa ra'iisul wasaare waana idiin sababaynayaa axmed wuxuu u arkaa ra'iisul wasaare xamse in uu 2 kiiloomitir ee axmed joogo uu ku yahay cadow war kuma aha war allaha hadduu yahay kuma aha shalay baad gardarro farmaajo kula dagaalantay saakana xamshaad rabtaa inaad tidhaahdo 2 ninoo isku reera baanu nahayoo xasan sheekh wuxuu xamse u magacaabay in aan anigu meesha ka baxo war waad ka baxaysaa imise sannadood baad joogtaa 2 kiiloomitir oo kismaayo ah maadaa dadka leh maadaa dalka leh wali qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa imaaraadku siciidani way taakuleeyaan axmed madoobena way taakuleeyaan madaxweyne xasan sheekh intaa ma garan waayey war farmaajo maamul goboleedyada wuu ka soo xidhay inay aadaan dowlado ajnabi ah maxaa adiga kuu yaallaa haddii maamul goboleedyadaadii ay u yeedhanayaan imaaraad sidee baanu u qaadanaa oo ay nooga dhaadhacdaa imaaraad iyo dowladda soomaaliya waa saaxiib arrinkaa madaxweynuhu dib ugu noqo soomaaliya faragelin taag uma hayso dowladdii hore geed bay ku xidhay inaad geed ku xidhaa la rabaa haddaadan ujeeddooyin kale aadan lahayn ama aadanba muraad ka lahayn inaad teeran saddexaad soo noqoto waruu intaana madaxweyne xasan sheekh iga gaadhsiiya alxaqiiqa qolooyinkan iliidka ah cumar cabdirashiid cabdiweli faroolahan inashido wixii aad shalay ku diidanaydeen farmaajo ayaa saaka yaalla garoowe ma shalay baad saxsanaydeen oo maantaad qaldan tihiin mise maantaad saxsan tihiinoo shalay baad ku gubteen farmaajo waxani waa taariikh siyaasadda soomaalidu waa marka waagu beriyo iyo ilbidhiqsiyo ayaa ninkii shalay wax ku hadlay galabtana wax kale ku hadlaya war naga taga dee qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa siciid iyo xasan sheekh waa isku mentality anaa aqaan sideedaba nimankan siyaasiyiinta ah ninka yaqaan waa aniga maxaa yeelay nin kursi ka raba maahi nin wax ka raba maahi ma ay laha itijaah fog mana laha mid dhow waagaa beriyey iyo galabnimadeeda iyo duhurnimadeeda wixii ay u arkaan maskaxdooda ku soo dhacab unbay ku dhaqmaan qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار